booqashada ra'iisul wasaare xasan cali kheyre ee Turkiga ayaa waxa uu sidoo kale ajandaha uu ku darsaday inuu arko dhaawacyada iyo waliba xaaladda ay ku sugan yihiin. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa mid u dul istaagay bukaanada isagoona su'aalo weydiinayay sida uu xaalkoodu yahay iyo waliba waxa ay dareemayaan. mararka qaarna waxa loo jeeday ra'iisul wasaaraha oo dhigta u raaricinaya bukaanada aan hadli karin. banaanka cisbitaalka ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu kula kulmay dad shacab ah oo doonayay inay arkaan, balse mid ka mid ah hooyooyinka ayaa ra'iisul wasaare xasan cali kheyre waxa ay ka codsatay inay la hadasho. waa uu ka aqbalay dhibkeeda ayay u sheegatay. kadibna maxaa dhacay؟ laba joor aba kala 3 kun laga rabaa. Ana ku siina 3. Ma sha Allah, ma sha Allah. dadka Soomaaliyeed dhowr sano ayay ku soo daaleen oo ay arkeen madax dhib loo sheegto haddana yiraahdaa hebel ayaan kala balamayaa sida ay hooyadani sugaysay, balse ma dhicin. oo ra'iisul wasaarihii ayaa waxa uu yiri aniga ayaa bixinaya. kadib ayay isku duubtay waa ayna ilmaysay. سلمان جمال سعيد TV عالمي يونيفرسال مجلة أنقرة.